Soomaaliyeed oo dhan dadkeena mee joogaanba kacaankii labaad ee dalkeena ka dhacay waxa madax u ahaa Maxamed Cabdulla Xasan سيد محمد عبد الله حسن وحوها نينكي ugu horeeyay ee gaalada la dagaalamay naftiis ugu rooha oo inuu Soomaali xirnimo u socosho ayuu doonay ujeedadiisu waxay ahayd gobonimo doon meeriska dhulku wuxuu sameeyaa laba wareeg mid uu ku sameeyo qurbidka yaa kala arday kalantayna doonayna marka adiga I'm a